waxaa uu noqonayaa mid qaangaar ah haatan noloshiisana waxaa ku soo beertay mid dhadiga oo lagu magacaabo Beauty. waxaa isku lamaanaanayaan 5 ilaa 6 cisho oo ay soconaysaa hawshan qooqa. waxa uu ku gaafureegayaa Chololo xadkiisa dhexdiisa iyo xuduudiisa, sidoo kalena midda dhadiga ah way la soconaysaa. dhammaan deegaanku haatan waa mid ammaan ah marka laga yimaado dhurwaaga oo isagu had iyo jeer ku lamaan iyo libaaxyo ay jaar yihiin oo raqda ka qaada mararka qaar. maalinba maalin ayay u dhiibaysaa, noloshana way isbedelaysaa. Chololo iyo Beauty meel kasta maanta ugaadh ayaa uga muuqata, balse maanta iyagu midaasi muhiim uma aha. shabaqda shabeellada qooqani waxay didinaysaa hurdada u diidaysaa kuwa. waxay urinaysaa cawshu urta shabeelka, sidoo kalena waxay isugu uraraysaa meelo gaar ah iyadoo didaysa. iyagoo didaya oo raxan-raxana ayaa qaarkood aad ugu soo dhawaanayaan halka joogaan shabeelladu. waxay si fursad dahabiya ku heleen labadooduba mid aad ugu soo dhawaatay inay qabtaan, balse iyaga dhexdooda ayaa haddana hirdanka dhex bilaamaya, iyaga oo ku hirdamaya raqda iskuna haysta. balse waxaa laga yaabaa inuu isagu dulqaad muujiyo midaas oo weli hirdanku ka dhaxeeyo. waxay dhammaan awoodda u ciirtay xagga midka labka ah waa Chololo. maanta waxa uu didinayaa daanyeerka Chololo, sidoo kale waxaa gabagaba ah maytikooda ama qooqa. waa mid ku weeraxay daanyeerada oo didinaya. waa goobta uu ku nooliyay had iyo jeer Chololo, sidoo kalena daanyeeradu waa qaar aad u qaylo badan oo digin. halkani maala laagtan waa midka isagu ka taliya haatan Chololo. waxa uu ku calaamadinayaa kaadidiisa, sidoo kalena cid kale soo ma geli karto. waxa gubtay qaybo badan oo ka mid ah xadka uu leeyahay Chololo, balse deegaan ballaaran ayaa u horay midkaas oo isagu kaligii uu ka yahay mulkiilaha ama booska halkan ka ugaarsaday degan. mid kale oo laba oo la jaar ah ayaa xadkiisa wax yar soo galay kadib markuu ogaaday inuu ku mashquulsan yahay qooqa iyo midda dhadiga, balse Chololo haatan waxa uu isku diyaarinaya inuu difaacdo dhulkiisa, waana u diyaar. isla goobtani waxaa sidoo kale ku sugan libaaxyo. waa bartay ku kulmaan xadka labadan shabeel ee haatan ishortaagan, sidoo kalena iyagu halkani waa qaar had iyo jeer ku soo noqnoqda oo ka ugaarsada. balse hal shay ayuu og yahay Chololo, inay halkan ay tahay xadkiisa, sidoo kale in loo dagaalamo oo la xoreeyana inay tahay muhiim.
iyada uu soo baxayo dayax 15 halkan maalmaala noloshu waa mid socota ugaarsiga iyo dhabagalkuna waa soconaya fursadaha iyo dilka ugaadhu waa mid soconaya waa mid ka faa'iideysanaya fursadaha Merulba Jalolo isla markii uu qabtay mid kamid ah cawsha Jalolo ayaa waxa si kadisa dusha uga yimid dhurwaaga oo meel ka yimaad la aqoon mid isdhiibaya maaha shabeelku jahwareerka ku dhacay cawsha ayuu ka faa'iideysanaya maadaama raqdiisa uu ka qaaday dhurwaa mar kale ayaa weeraraya sidoo kalena isagu waxa uu doonayaa caawa fursad labaad